سيدا درت يدبر رسولك عليه الصلاة والسلام وحليها استعينوا بأموركم الكتمان وروحي إلهي وهبة إذين سيئي مالك أوكلي ما هنا وحي إلهي هبة إذين سيئي قرصدا لأن لكل نعمة فإن لكل نعمة حسود نعمة كستو إفكت الله إذ أمبا كيو أتو محروقه حاسد كؤة مركا نعموين كين هذه شير أسترطة أي النبي عليه الصلاة والسلام marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awoodiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo caruur ah intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalinta wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyay anigu waxaan goobjooga ku yar oo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu caruurta ku raacay madrasadu aaday malcaamada markaa isagu ma dhigtay uu dhageystaa sidii soo dhageysanayay uu 5 jis caruurtii akhriyaysa ka xifdiyay dadkii baa yaa wax ma sha Allah ila markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayay caruurta hadduu raacana intuu ka leexdo gudaafad fadhiisanaya habeen kaliya 5 jisba maskaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen halbeen kaliya ay maskaxdiis ka dhiliid garoobeen marka bahashan ishu waa halis weeye waxaan uga hadlayaa aqoon aan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayana in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba nasrixi ilmihi maaha markiiba uu isbedelayaa marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yiraahdo aabo wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagay adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka inta tagto wixii jaayisad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu inta ilaahay cuskatooda aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin caruurtiina fagaaraha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyay yaan looga dhigin xayeysiis iskuulkaas caruurta si fiican wax u bara si loo yiraahdo darteed ba inta badan caruurta magaaraha u keenaa hadhowna waxaan xasuustaa waqtigiisii aad bare Sheekh Cabdirashiid Ali Suufi baa wuxuu kaxeeyay inaan 7 jir buu ahaa Sheekh Ali Dheera uu ahaa nin garanaya waxa la geeyay Sacuudiga سعودي قال لك صدق القرآن كعالم كيسجى رقم 1 قاطع عالم كنا تدبشر باي الماس مركي دم ماشي لجسر عليه ماذا حبب برا كصوب حضي المهيرة ماذا حي برا كصوب حضي عالم كنا باتي في اللي قدامني رقم 1 كون نقضي مركا لأن فإن لكل نعمة حسود نعمة كستاب حاسد بين الله ضهاي marka hadii ilaahay nicmo ku siiyo nicmada maal ama nicmada ilm ama nicmada quwwa wa nashaat ama nicmada awlaad ama nicmada jamal haduu ilaahay ku siiyo asturo lagu lama qabo asturo hadii kale waxaan hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana taa ina barayo nabiyillah yaqub alayhi salatu wasalaam uu leeyahay maandooyinow markaad meesha tagtaan idinkoo sunsumaya oo 12 nin oo degeed ka wada laaleega tihiin albaab kaliya ha ka gelina wadkhulu waxaad ka gashaan min abwaab mutafarriqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha hadaanad quraanka kala soo bixi karaynin waxa tahay kamithal al-himari yahmilu asfaran quraankani طب النبوي iyo طب المادي iyo طب الروحاني intaba uu isugu jiraa marka nabi ilaahi yaqub kabarta 10 kan uu ina barayo waa taxaddar عن العين عينta inaad ka feejignaato markaan saalayahay mar walba hadana yaani cabsi mar walba cabsanine adigoo ilaahay isku xiraya asbaabtii lagaga xijaabanaya isha la kaale waa adkaarta sabaax adkaarta masaaga iyo weysadaada iyo sadaqada waxa ugu fiican ee cudurka lagu daweeyaa waxa weeyaan sadaqada iyo
salaada labadaa ruuxu hadduu ilaashado walaa cayn baan karayn walaa sixir baan karaynin beri baa waxaa aan idinka yaro sheekeeye naag waxaa ii timi naag baa ii timi waxay iga sheekaysay naagta kale uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabbo ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxabbo ah bay u samaysanaysay mid sixiroole ah ayay islaan sixirooley ah ayay 4 jeer ku noqotay oy leedahay ilaa hadda wax isbeddela ninkii kuma hayo markii dambe islaantii waraysato waxay tihi mahaadhe bal ninkaaga iiga warran siduu ku yahay weysada markaasaa waxay tidhi haddii uu guriga ka baxayana weysu ku baxaa haddii uu seexanayana weysu ku seexdaa islaantii sixirooleyda waxay tihi ninkaa ha ku daalin waxba la heli mayno ninkaa ha ku daalin waxba ma qabadsiin karee waxaa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha ka mid a ayuu meel tuule ah buu ka carraabayoo gurigoo meel yaro fog ayuu u carraabay burcaa laygu keenay yurowe markaan deganaa ninka dabeedna markuu salaaddii maqrib tukaday ayuu ul yaro leexday meeloo uu kaajay uu iska bi'iyey uu dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan dee nabarba halkaa kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu suuxay barqadii dambe ayaa dadkii waddada marayay ay soo heleen isagoo koomo ku jiraa la ii keenay markaan qur'aankii ku aqriyey ayay wax ka dhaxadleen jibankii la adeegsanayay sixiroolayaashu marka waxay yidhaahdeen intaasoo sannadood baan daba soconnay oon jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halkaa ka helno markaasaanu gallay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku yidhi galabta caynkaa iyo caynkaas ahayd markaad carrowday halkeed kaadida ugu leexatay halkaa markii aad kaadida u leexatay aad iska bi'isay wixii ka dambeeyey maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulkacay aan iska biyey baa war iigu dambeysay bay buuri baa war iigu dambeysay qiso kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood qur-aan ku aqriyey waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka uu ahaa sixiroolaha ayaa markaa wuxuu ku hadlaya carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socdo dee qiso dheer bay noqonaysaa waqtigay naga qaadaseen jinkii markaa wuu muslimay jinkii sixirooluhu soo dirtay martiini baa la odhan jiray magaciisa magacaa baan ku yidhoo martiini baa la yidhaahdaa markaasaa casarkii dambe ayaan intaan suuliga galay aan soo istijaystay baan soo noqday anoon weysaysan waan ilaabay waa markuu muslimiid ka bacdi markaasaan qur-aankii ku bilaabay wuxuu yidhi waryahay maxamed war orada soo weysayso markaasaan ku yidhi war waan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallaahi ma weyse qabsada war soo weysayso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysaystay markaan soo noqday waan ku yidhi martiiniyow maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay wili difaacaaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa haddaan sidaydii gaalnimadii u haysan lahaa wax allaale wax iga kaaxigay ma jirin difaacaaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yidhaahdaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto ood intaad hubka dhigato aada cadowgii afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxu lmu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka maanu arag weysada iyo salaad maxaanku idhaahdaa sadaqada
iyo jamca salaada saddexdan maado wax uga awood badan saddexda difaacooda maan aragan intaan baabka ku dhex jiray maantana wuxuu nabi ilaahi yacquub ina barayaa inaan waxeena iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aad haysatay mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aad isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey wuxuu ku yidhi markaa nabi ilaahi yacquub wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan ka gala anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi wamaa ugni cankum idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an anigu ilaahay idinkama celin karo laakiin asbaabtaan la imanaya in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lilaahi ilaahay baa guddoonka iska leh xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu xukumana anu ma celin karo laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadnaa nala faray calayhi tawakaltu ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi ilaahay korkiisa uunna falyatawakal ha tala saarto almutawakkiluuna ciddii wax tala saaranaysaa